waatana alaabteena sidee kusoo baxday, maxaan ka sameeyey iyo sideen u sameeyey. Fiidiyaha fadlan daawo dhammayso, adigoo dhammaysan ma ogaan kartid sidaanay u qurux badan tahay. wax qarashana kaagama baxaayo, waa wax yaroo aad u fudud aadna u qurux badan aad gurigaada ku hagaagsanaysid. insha allah kusoo dhawaada channelkeena, subscribe iyo like iyo comment waa xaggiina. fiidiyaha daawada insha allah. Nafta-Uroon Official waxaad ka heli doontaa waxyaalo ku qanciyo sida guri qurxinta, naqshadeynta gacanta, hibada ilaahay ku siiyey. soo fadlan subscribe, like, share and comment please. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada youtube channelkeena Nafta-Uroon Official. haddaa nagu cusub tahay subscribe, like, comment and share please. maanta waxaa idin hayaa weligay fiidiyoyada saana ma ka hadlin, laakiin had ka bacdeen idin soo sharxaan isku dayaa. meeshan waxaa ku haysanaa shamiinto, shumac, biyo, maqas, koolo, qajaclayaashii riiska ah. alaabta fiidiyaha hor ahaantiis kusoo aragteen ayaan ka hagaajin rabnaa hadduu alla idmo. waa sharaxaada guriga simple ah, gurigaada aad ku hagaajisanaysiin. shamiintadii soo cabirtay, cabirka hadda inta aragtida cabirane. muhiimada qastaanka leh waaye, qastaanka inay kaa adka yacni adeegna kaa noqonin, jilaaco biyana aadan ka dhigin oo dhadhexaad camal aad ka dhigtid waaye. marka shamiintadayna hadda meeshaan ku qasanayna hadduu alla idmo. waa kanaa qajaclayaalkan yaryarka ah oo biyaha 10 shilin kolley waa taqaanin. kaasuu iga halaabay dabadu ka go-naay, marka qaybta dabada ahaa fiican. horta waxaan sharaxaada ee wixii aragtida ka hagaajisan kartaa. hadda qaabka uu kusoo baxay bilowga hore waa aragteen. sharaxaada qurux badan uu kusoo baxay. waa kana qajaclaha anigoo jaraayo, meesha u dambeysaa ka jarane. mindi af leh u baahan tahay. dadaa midida u kululeysto, anima kulleey mindi af lahaa raadiya. waa duleelinay kabacdi caadiga kuugu jarmee. qiyaasta aragtidna waa ka jarane oo qurux badan ah. marka adi meeshan dhowr xabo 6 xabo camal ku haystaa qajacle ah. 6doodii aan soo jarjaranaya, aan soo habeynaya oo maxaa la dhahaa markaas shamiintadii kusoo shubaya. waxaa waaye candle holder aa la dhahaa. shumacayada yariiska ah baa la saarto, waa qurux badan. marka waxyaalahan oo kaleeto gurigaada ku hagaajisan kartaa adoo qarash gelin. hadda suuqyada tagtid candle holder rabaa aa dhahdid oo kale, waxaa laga yaabaa qiimo badan in lagaa gado oo lacagta adduunka ee lacagtaas. marka waxaa laga yaabaa hadda waxaan dhan aa soo gadinay inayba kaaga yaraato oo weli lacag ay kusoo harto. marka anima jeclaada wax badana markaan tago meelasha moolalka waxaa kusoo arko wixii daruuri ah isdho waxaan ma sameyn kartid ma ahane. wixii kale waxaan jeclaa inaan isku dayo. wax walbana isku dayga waa shay qaali ah. kooladii ku dhijisanayna sidaa ka aragtiinbo. wax dhib badan ma ahan, waa shaqo aad u fudud. markaa sameynaysid waaba u bageeyaa ku dhahe. waa sheeqo oo maxaa la dhahaayo aad ka helaysid, aad ku raaxaysanaysid. markaas marka waxaa fiican wax waliba isku daygu waa shay qaali ah. ani waxaan jeclaa wax walba oo soo arka maanta inaa isku dayo. taasna waa muhiim. wax hadda isku daydada samaystid gurigaada aad quruxsatid waa talente adiga aad leedahay oo ilaahay ku siiyey ood la soo baxday soo maaha. marka qof walba ilaahay talent uu siiyey. talentigaada marka inaada ka xishoonin, inaada ka cabsanin, inaad soo samaysid. ani hadda badanaa gurigayga walahi maasha allah wax kale kuma qurxiyo. wax dhifa maahana aan soo gaday. wixii kala badanaa wixii markaan arko maskaxdayda isku dhufsadaa. waxaan is dhahaa waxaas maxaa ka habeyn kartaa, maxaa ku habeysan kartaa adoo kaas na soo gadanin ama qarash aada galin. hadda reer Nairobi oo kale waa isnaqaanaa. Nairobi dadka jooga dhammaan saacadaha darbiga lagu dhajiisanayo, waxyaalahan yararka shumacyadaneeto. shumac caadi ah waxaa laga soo gadaya $200, waa $2 ama $3 camal. haddii afiirisana shumacii hadhoodii maalin kasta batariyo kaa rabaa, qarashu kaa rabaa. shumacan hadda shumacyada yariiska waaye oo la daarayo meelka kombay la dhaho. sujuuyi dhowr iyo 10 xabo aan waxaan kusoo gatay 20 xabo waa dhan yahay umaleynaa. waxaan kusoo gaday $2 camal. meelihii la saar lahaayo kaleeto dhulkan waa la dhigan karaa, laakiin shumacan badanaa halistiisa badan because of waa lagu istaagi karaa ama waxbuu kaa gaari karaa. waa dab soo maaha. inaa meel oo xafid ah oo meelaa ku dhex ridid uu lahaada fiican holderkan oo kale. marka hadda alaabteena waa ujeedeen sida daawanaysanba waa soo qalajiyey. soo rasheeka idin galay. waa soo qastay meesha kusoo shubtay kooladaas ku dhajiyey. marka dambana way noo soo
qalashay soo reef Soomaaliga meesha u horeysana maxaa la bahash u horeysa dartaan way iga halawday xabada dheerta ahayd waxa isdhaaf fashion kala ku noqoto ama qaab kaleeto laakiin itoos waaye kana markaa jaraysid waxa sameynay qaab degan alabtana waa inay ku qalashaa ugu yaraan 2 beri oo dhan aan qalajinayay maalinta koowaad isku day hadda xabada u horeysa oo iga halawday uu kala jajabay shamiintada way burburtay marka sidaan hadda u jarayna waa qalad marka dambe saxaya mindida meel yar oo afka ah ka gelnay soo marka yaani caag waa maahan oo caag marka jeexisid waxa u jeexay dhinacan markuu ku bilaamo dhinaca hoose u sii waday markaas qaybta kala ku sii jeexmay moogtahay ma u baahanis markaas mar dambe inaad mid ku taabatid waa ka saadada u jeedino maleynaya ilaa hoose u sii jeexay hoose ilaa dib dambe aad ka gaartid mana ka jajabahay mana ka halaabayo si fiican oo qalalay oo qurux badan waa ka sadabada iyo asiga soo ku soo baxay naqshada uu ku soo baxno oo jeedaa naqshad qurux badan oo habeesan hadii isdhaa waxaan qajaclay ama caag iyo wax laga sameeyay maya marka waa inaad isku daydid wixii aad qaban kartid wixii aad aragtid isku day waa shay qaali ah waa shay muhiim ah soo waxaan leeyahay insha Allah ku soo dhawaada channelka subscribe iyo like dhiirigelinta xaqiina waa Soomahan qofka walaalka markuu wax isku dayo waa la dhiirigeliyaa hore loo sii gudbiyaa ma ahayn la xasto waa inaad dhahdaa walaal hore u soco waa isku day wanaagsan ma sha Allah inaan ka bixiyo isku dayay oo ni iga bixin waayay soo sidiisa isaga daaranaad koos dhimalaan waa ugu talagalay inuu meesha igu dhex jiro Soomahan bilaawii horena waa ka soo aragteen videoga sida uu ku soo baxay gadaalna qaab kaleeta u soo duubay meel kale qurux badanna waa ka arki doonteen insha Allah inta dambana hada waxa ii dhiman inaa soo rinjiyeeyo oo ka bacdina noo soo daaro inta sitan kale indhaha ka daawanaysiin oo alla idmo maanta dhan war ma la wadahay may marka insha Allah asxaabteedan jeclahay soo dhawaada asxaabta cusub welcome idin leeyahay kuwii hore noola joogana sidiina hore noola joogo waa idin jecelnahay marka so welcome anyway marka waxaan dhahayo nashida noo sii daaraya haduu alla idmo inta dambe indiina ka bogta haduu alla idmo soo ku soo baxay dib dambe oo qurux badan ka arki doontiin welcome walaalaha aan jeclahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hilalul khayr wal ihsan fi shahr as-sawm wal qur'an hilalul khayr wal ihsan لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان ينادينا لخير قد أتى رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين هلال الخير والإحسان في شهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان في شهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان ينادينا لخير قد أتى رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين هلال الخير والإحسان في شهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان في شهر
هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان ينادينا لخير قد أتى رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان ينادينا لخير قد أتى رمضان لجنات وروضات وحور عين والريحان اللهم أعني في رمضان على صيامه وقيامه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان